bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan halkan waa janalka toosno media aad uga barateen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararka ugu door korona waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka oo war ka soo saaray geerida John Magufuli maxaa ka jira in Kenya ay lumin doonto Lamu haddii looga adkaado kiiska badda Masar oo siyaasad cusub ku wajahaysa Soomaaliya maxaa cusub oo soo kordhay maxkamadda ICJ oo war cusub ka soo saartay kiiska dacwadda badda Soomaaliya Uganda oo ciidamadeeda keedka ah u soo diraysa Soomaaliya qodobada iyo qodobo dhowr ayaan ku faaqidi doonaa warkeena duhurnimo ku soo dhawaada faahfaahinta warka madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay geeridii ku timid madaxweynihii wadanka Tanzania John Magufuli oo u dhintay wadne xanuun madaxweyne Farmaajo ayaa tacsi u diray shacabka iyo dowladda Tanzania isagoo si gaar ah ugu tacsiyay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Marwa Suluhu Saamiya iyo marwadii uu ka geeriyooday madaxweynuhu Janet Magufuli anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan dowladda iyo qaranka Soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan tacsi tiraanya leh u diro Jamhuuriyadda Midoobay ee Tanzania geeridii ku timid madaxweyne John Magufuli ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka geerida madaxweynaha Tanzania ayaa timid kadib markii 3 toddobaad aan la arag taa oo abuurtay xan ku saabsan inuu xanuunsanaa wuxuuna ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Dar es Salaam ee caasimadda dalkaasi sida ay shaacisay dowladda Magufuli ayaa la doortay 2015 wuxuuna ku caanbaxay inuu ahaa hogaamiye la dagaalama musuqmaasuqa taa oo shacabkiisu ku jeclaadeen hase yeeshee wuxuu kadib ku dhacay kalitalisnimo isagoo oo bilaabay inuu caburiyo warbaahinta mucaaradka iyo bulshada rayidka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa sheegtay inay maanta soo gabagabeyn doonto dhageysiga kiiska dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya maxkamadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in kadib dhageysiga maanta ay gudigali doonto gaarista go'aanka kiiskan isla markaana ay xukumin doonto inkastoo aysan shaacin waqtiga rasmiga ah Soomaaliya ayaa maxkamadda u gudbisay dood afeedka 15 ilaa 16 Maaj ma dhicin wax dhageysi ah 17 Maaj kadib markii Kenya ay diiday inay ka qayb gasho doodda afka ay maxkamadda ka socoto sidaas darteed ayay tiri maxkamadda Soomaaliya ayaa maanta soo gudbin doonta doodeeda ugu dambeysa saacada magaalada Hague marka ay tahay 9 PM taa oo ku beegan 5 PM xilliga Muqdisho maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ayaa shalay ku gacan saartay codsi ka yimid Kenya oo ah inay dib ugu soo laabato dhageysiga dacwadda oo ay qaadacday 11 bishan sida ay sheegeen guddiga matalaya Soomaaliya go'aanka maxkamadda ay ku diiday codsiga Kenya ayaa fursad weyn u ah Soomaaliya iyo qareenada matalaya sababtoo ah Kenya ma ka haysato fursad ay isku difaacdo xiriirada siyaasadeed ee bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaa isku bedbedelaysa si joogto ah waxaana ka mid ah xiriirka Masar iyo Soomaaliya ee qaboobay kadib ay Soomaaliya dhexdhexaad ka istaagtay biyo-xireenka webiga Nile oo Masar iyo Itoobiya ku muransan yihiin 8 Maaj 2021 madaxweynaha Masar Cabdi Fataax al-Siisi ayaa ku qaabilay qasrigiisa Qaahira safiirka cusub ee Soomaaliya u magacaawday Masar Ilays Sheekh Cumar isla maalintii la gudoomay waraaqadaha safiirnimo waxa uu Ilyas soo saaray war-saxaafadeed uu ku muujinayo sida ay Soomaaliya rajo weyn uga qabto sidii u sii socon lahaa xiriirka soo jireenka ah ee kala dhexeeya Masar sharaf weyn iyo taariikh ayay ii tahay inaan warqadahayga aqoonsi ku wareejiyo madaxweyne al-Siisi ayuu ku yiri bilowga war-saxaafadeedka wuxuuna safiirka hoosta ka xariiqay xiriirka faca weyn ee Soomaaliya iyo Masar iyo in Masar ay kala shaqeyso Soomaaliya heshiisyo isfaham ah oo ay kala saxiixdeen labada dowladood sanadihii 2015 iyo 2019 kuwa oo ku saabsanaa waxbarashada caafimaadka beeraha xoolaha ganacsiga iyo kalluumeysiga wasaaradda arrimaha dibadda Masar ayaa 5 Maaj soo saartay war murtiyeed ay ku cambaareenayso qarax ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan qaraxii maqaayadda Lul Yamani oo dad shacab dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay Masar waxay sheegtay inay Soomaaliya ku garab taagan tahay sidii looga adkaan lahaa argagixisada Al-Shabaab si dadka loogu soo celiyo amni iyo kala dambeyn wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan shirka arrimaha doorashooyinka ee ka dhacay magaalada Muqdisho Iswan ayaa shaaca ka qaaday
in shirkan ay soo qaban qaabisay beesha caalamka isla markaana ay bixinayso taageerada dhaqaalaha ee ku aadan fududeynta shirkaasi. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday inay diyaarinayaan teendhada Afisyooni oo ku taala xerada Xalane isla markaana uu ka dhacayo shirka. Sidoo kale wuxuu intaa ku daray in ammaanka goobta uu yahay mid la isku halayn karo isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Waxaan xusayaa inaan dooneyno in Soomaalida siino taageero dhanka dhaqaalaha ah. Taasi waxaa naga codsaday xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaana ku raacnay xafiiska madaxweynaha. Waxaan diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaala garoonka diyaaradaha, waxaana bixin doonaa dhaqaalaha gobolada dalka looga keenayo ergooyinka maamul goboleedyada dalka. Sidoo kale AMISOM waxaan kala shaqeynaynaa sugidda ammaanka. Marka waxaan rajeynaynaa in wada hadaladani ay sii socon doonaan iyaga oo ka dhacaya meel ammaan ah sida ay isku raaceen madaxda Soomaalida, ayuu yiri ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Ambassador Swan oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dadaalada socda ay muhiim u yihiin hanaanka doorashooyinka oo uu tilmaamay inay laf-dhabar u yihiin madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha xilka sii haya, hogaamiyaasha maamul goboleedyada, madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo iska horjeeda kuwaasi oo looga arrinsanayay ismariwaaga weli ka taagan hanaanka loo wajahayo doorashooyinka. Dadka degan Lamu waxay lumin doonaan xuquuqdooda kalluumeysi haddii maxkamadda ICJ ay Soomaaliya u xukumiso dhulbadeedka ay dacwadiisu qaadayso. Waxaa sidaasi maxkamadda u sheegay Kenya. Kenya ayaa ku doodeysa in xuduudda badda ee labada dal lagu saleeyo loolka ama xagal qaloocan oo dhinaca Soomaaliya soo aadaysa. Loolka ayaa Kenya siinaysa qayb ka mid ah dhulbadeedka Soomaaliya. Qareenada Soomaaliya ayaa sheegay inay Soomaaliya mowqifkeedu tahay in xadeynta lagu saleeyo leynka tooska ah ee ku astaysan xuduudda dhulka. Qareenada Soomaaliya waxay sheegeen in xadeynta badda ee noocaasi ah loo adeegsaday xukunadii hore ee maxkamaddu go'aamisay ee ku aadanaa badaha wadamo uu muran ka dhaxeeyay sida Bangladesh, Myanmar oo kale. Haddii maxkamadda ICJ ay kiiska ku xukumiso Soomaaliya, Kenya ma weyn doonto dhul ka maqan balse waxay weyn doontaa dhulbadeed aysan lahayn oo hadda ay kalluumeysatada dalkaasi uga kalluumeystaan si sharci darro ah. Kenya ayaa dukumeentiyo ay u gudbisay maxkamadda ku dooday in kalluumeysiga uu yahay 80% dakhliga bulshooyinka ku nool Lamu. Kenya ayaa sidoo kale ku dooday in hadduu dhulka la isku hayo loo xukumiyo Soomaaliya uu aad u yaraan doono dhulbadeedka Kenya, taasi oo sida ay ku dooday xadidi doonta dhaqdhaqaaqa maraakiibta. Ugu dambeyntiina dowladda Uganda ayaa sheegtay in ciidamo hor leh oo ka tirsan kuwa kaydka ay u soo dirayso gudaha Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan howlgalka midowga Afrika AMISOM ee lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Ciidamada oo gaaraya ilaa 2752 oo askari ayaa haatan ku sugan xarunta tababarada taageerada nabadda ee Singo si loogu tababaro halkaasi. Uganda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamadaasi ay Soomaaliya soo gaarayaan inta u dhaxaysa bisha Oktoobar ee sanadkan ilaa bartamaha sanadka kale ee 2022. Sidoo kale waxaa intaa ku dartay dowladda Uganda in ciidamada ay soo dirayso ay bedeli doonaan kuwa kale oo ku sugan Soomaaliya oo dhameystay joogitaankooda. Wadanka Uganda ayaa ah dalka ugu badan ee ay ka socdaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee haatan howlgallada ka wada gudaha Soomaaliya, waxa ayna garab siiyaan ciidamada xoogga dalka ee haatan dagaalka adag kula jira kooxda Al-Shabaab. Si kastaba, howlgalka AMISOM ayaa soo bilowday sanadkii 2007 waxaana tan iyo markaasi ciidanka midowga Afrika ay howlgallo ka wadeen gudaha Soomaaliya. Inta ayaynu kusoo gabagabaynaynaa warkeena duhurnimo. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.